السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دواada channelka AK Vlogs saaka waa subax goor hore roob baa da'ay jawiguna aad iyo aad buu macaan yahay halkana waa magaalada Boorama oo runtii markuu roobku da'o qurux gaar ah leh muuqaal baan ka soo duubaynaa xalay halkan baanu seexanay saakana waxaan ku sii soconaa jaamacadda Camuud muuqaal ayaanu ka soo duubaynaa guud ahaanba magaalada la socod wanaagsan muuqaalka hadduu ku soo gaadho subscribe saar haddii aad nala joogtana like saar aad iyo aad baa mahadsantihiin daawadayaal sidaad arkaysaan maanta waxaan ku sugannahay magaalada Boorama gaar ahaan biriishka jaamacadda Camuud loo maray isku xidha magaalada iyo jaamacadda baskan aad arkaysaan waa baskii jaamacadda Camuud wuxuu sidaa ardaydii waxaanu doonaynaa qof Boorama yimi Boorama waxa ku caan tahay gobolka aqoonta baa la yiraahdaa waa gobol cagaaran run ahaantii buuro waaweyn leh aad iyo aad u qurux badan waa magaalo rin laga soo dareemayso marka timaado leer aad u macaan baa halka ka dhacaysa waxaanu doonaynaa bal inaad nala soo eegtaan halkan marka timaado waxaad xasuusanaysaa heestii cawaale ee aad quruxdooda buuraha rakada ubaxu rooshaamo boorama inay raaxataa laysku wada raaciye bal taasaynu maanta daawanayna haddii ilaahay ka dhigo nala daawada hadduu fiidiyowga ku soo gaadho dee xaqiisa sii baan ku leenahay ina marsha ilaahay jaamacadda Camuud kusoo dhawaada hoyga aqoonta iyo cilmiga jaamacadda Camuud magaalada Boorama gobolka Awdal joognaa waxaan joognaa siiba jaamacadda Camuud dhexdeeda halkan baan doonaynaa inaan falo kacsan oo aad iyo aad u qurux badan ka soo toogno kulliyadaha halkan lagu faro oo lagu barto oo aad u fara badan baan doonaynaa iyagana wax ka ogaano ardayda iyo macallimiinta iyo dadka halkan jooga ayaan doonaynaa qaar ka mid ah in iyagana wareysano daawasho wanaagsan deegaan ahaan iyo environmentiga halkan aad iyo aad buu fiican tahay wax laga tuulo wax laga xeeray mid aad iyo aad u qurux badan waa goob ka muuqanayo hoy inay hoy u tahay malaayiin iyo malaayiin arday ah oo barta maadaama halkan ku jirto ay ka jiraan kulliyadaha sida agriculture oo kale way ka muuqanaysaa dhirta ku taalo oo kaliya greenka ah ayaad ka arkaysaa inay tahay hoy cilmi daawadayaal sida halka idinka muuqata dhagaxa waxaa la geliyey 1952 bishii February waa waqti aad u fog taas macnaheedu waxa ka dhigan tahay xilligaaba dhismo u dhisnaa dhismaha arkaysan waqtigaaba uu jiray waanu dhisnaa 100 sano wax ku dhow ama wax ka badan ayaa laga yaabaa dhismahan inuu dhisnaa
jaamacaddii baan weli dhex rogeynaynaa xagga naga dambaysa oo qaybta wax lagu dhiganayay xaggana waa qayb kale oo ka mid ah jaamacadda oo ka mid ah waddadaas ayaan doonaya in raacno wallaahi ma iyo xagga ugu dambaysaan soo eegno jaamacaddu waa jaamacad aad u ballaaran arday aad fara badan wax bay ku dhigtaan waa runtii waa meel markaad timaadid aad dareemaysid naxariis iyo qabow fara badan aad dareemaysid waxaa qofkii garanaya waxaad moodid aqal Soomaaliga aad moodid bal qofkii garanaya noo sheego dad inuu aad reer miyi yahayd oo aad dhaqanka miyiga wax ka taqaanay bal waxaa noo sheeg daawadayaal jaamacadda Camuud dhibaarmanada ay ka koobantahay aad iyo aad bay kala duwan yihiin aad iyo aad bay u fara badan yihiin waa wax aad iyo aad badan social science oo kaliya ayaa waxa lagu dhigtaa HRM-kii human resource management-kii accounting-kii business-kii public administration-kii sidoo kale waxa lagu dhigtaa development management-kii oo DM-kii xagga health-ka oo kale aad bay u fara badan yihiin social science-ka waxa lagu dhigtaa midwifery-gii nursing-kii lab-kii laboratory-gii waxa lagu dhigtaayo kale biomedical waste management oo kale lagu dhigtaa aad bay u fara badan yihiin ruuxantii engineering-kii oo kale ku jira ICT-gii oo kale ku jira qaar ka mid ah ardayda jaamacaddan dhigata oo noo warramay isla markaana ka cudur daatay in kamarada ay ka soo muuqdaan ayaa waxay noo sheegeen in guud ahaanba jaamacadda uu ka soconayo imtixaankii finalka ah ee jaamacadda isla markaana semesterku ku soo xidhmayay sidoo kale ardayda siniyarada isla markaana jaamacaddan ka qalin jebinaya ayaa waxay joogaan xilligii stagekii ay difaacanayeen tisiskooda ama barbuusakoodii buuggoodii ay ku qalin jebinayeen jaamacadda run ahaantii aad iyo aad ma dhowata jaam bay ahayd laakiin guud ahaanba ardaydii way wada xaroodeen sidoo kale waxa la qaadanaya ardaydii freshka ahayd isla markaana jaamacaddan sanadka koowaad ka bilaabayay jaamacaddan quality-geeda waxbarasho aad iyo aad buu u fiican yahay siday noo sheegeen qaar ka mid ah ardayda oo aan waraysi gaara ka qaadnay ardayda dhammaan sanad dugsiyeedka Somaliland iyo geeska Afrika ka qalin jebinaysa ciddii codkeedu gaadho waxaan leenahay ka qayb gala jaamacadda Camuud ciddii dhaqaale u helaysa insha Allah ha dhigtaan cilmigiina kor u qaadaan leenahay daawashada